الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الله مهدئ مركز سيد الكستون شغله مرلبا waxaan u mahadnaqayaa wafdiga ballaaran ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi horkacayo ee maanta ku sugan kambaska jaamacadda Timacade mudane madaxweyne soo dhawow adiga iyo wafdigaagu soo dhawaada intaa markaan ka gudbo waxaan hambalyo ballaaran iyo duco ballaaran u dirayaa dhammaan ardayda ka qalinjebisay jaamacadda Timacade qaybtay doonaan ha ahaadaane ama kuwa macallimiinta ha ahaadaan ama kuwa ardayda ha ahaadaan allah idin barakeeyo allah barakallahu lakuma fima ta'allamtu waxa aad barateen allah idin barakeeyo الله يديم وافقه ضلك يضلكنا الله وافقه انت مركان كجبو مدن مدحوينه جامعه Timacade waxa la asaasay 2009 waxa lagu asaasay 130 arday afar kalaasna waa lagu asaasay gacan badan waxa naga siisay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu ammaan iyo mahadnaqo ugu hayno wixii aanu qabsan kareynayna markaan qabsanay meel walba waanu isku taarnay meel walba qayladaan baan u dirnay laakiin xooga iyo xoolaha waa xukuumadda mar haddaan xukuumadda jirin waxba lama qabsan karo waxaanu qabsanayna xukuumadda qabatay muddada 12 sano ahayd waxa ka baxay jaamacadda 2100 arday baa ka baxay 2100 arday baa ka qalin jiray dhammaantood boqolkiiba 90 boqolkiiba 10 mooyaane way shaqeeyaan waxaana u shaqeeyaan waliba intooda badan gobolka Gabiley bay ka shaqeeyaan intooda badanna waliba waa alxamdulillah rabbil caalamiin ummad iyo ubax ka soo baxay oo haddana ku shaqeynaya waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo muddadii ay jirtay 2006 maanta kuwa noor fadhiya waxa ka soo joogay 2600 arday bay wax soo bartay 530 arday maanta kala jeebinayaan intaa waxa kaga gudbayaa inay wax ku darayaayo muddadii jaamacadda madaxweyne la furay laba saddexdii sano u horeeyay mooyaane iyo wixii ka horeeyay Gabiley qoysasku waxay ka guuri jireen marka ardaydu ay ka baxaan dugsiga sare ee Timacade markay ka baxaan way guuri jireen waxaana u guuri jireen ama Hargeysa ama Boorama jaamacadda alxamdulillah rabbil caalamiin waxay nageysay ummadii reer Gabiley ee guuri lahayd imika ma guuraan ardaydii waxay la heleen waxbarasho jaamacadeed waxay la heleen waxay doonayeen fakar walba way la heleen alxamdulillah amaantaana jaamacadda leh ragii aasaasay ayaana Ilaahay baan mahadnaq iskala marka koobaad mudane madaxweyne jaamacadda baahideeda in badan waxa ka hadlay gudoomiyaha aniguna waan dul marayaa isku mid baan aniguna mar haddaan ku hadlay afka boorkii jaamacaddu waxay u baahan tahay adiga wasiirkaaga waad sag fadhidaane in jaamacadda naloo ballaariyo naloo raro qalax naloo geeyo dhulka qalax lagu leeyahay la geeyo halkani kuma filaanayso jaamacadda increasingka nooca leh ee intaa kordhaysa markaa waxaanu aad iyo aad u codsanaynaa in jaamacadda naloo ballaariyo gobolku baaxadiisa ha yaraade laakiin degmooyinkiisa iyo tirada dadka ku nool ayaa badan magaalo kasta iskuul baa ka jira dugsi sare magaalo kasta leedahay ku dhaxay leedahay tuulo waliba arday kasta oo tuulo gobolka Gabiley ka mid ku nool wuxuu u baahan yahay inuu jaamacad helo si jaamacadda uga qayb noqdo mudane madaxweyne waxaan codsanaynaa inta anagoo awoodda dawladda in qayb boodhana oo Arabsiya iyo Wajaale iyo Awlay baday iyo Ijaare iyo Agabar ay ka qayb noqdaan ay seexdaan saaka waxa soo qaaday Ilaahay iyo Cabdullaahi Kaliila ila socday inaan Arabsiya ka soo lugaysay oo jaamacadda ku soo socotay ayaa ka soo qaaday controlka gaari horaa hortay soo qaaday wuxuu galowday baa ku eegay galowday buu dhigay intii annaalkii baa ka soo qaaday dhibaatadaas mudan madaxweyne jirta oo de ardayga doonaya inuu isagoo Arabsiya degan haddana wax bartaa waa ku kadeed inuu aroor walba halka haddana soo maro marka in boarding qaybta loo sameeyo waanu codsanaynaa waxa kaloo codsanaynaa in badan baa madaxweyne ubadaadana ku sheegtay caalamku isbedelay
oo uu isku bedelay wax soo saar maciishadii oo kacday beerihii oo loo baahday waxaan isku haysanaa markaa inaanu nahay gobolkii waxbeerista maadaama aanu nahay gobolkii waxbeerista jaamacaddayada inaad ka dhigto fakalkan beeraha fakal active oo shaqeeya oo jaamacadaha kale ku soo higtaan oo aad empower garaysaan adiga iyo wasiirkooda inaad maanta taana noogu dhawaaqdaan oo bilaabaan jaamacaddan wixii researcha iyo wixii cilmi baaris ah ee beeraha khuseeya halkan in laga dhigo haddii aan la yidhaahdo ardaydeeda iyo aqoontoodana in la koriyo intaana waan codsanaynaa taasina waxay ku imanaysaa inaan weliba miisaaniyadda axmed toorna sacaadata wasiir annagoo aadku ugu mahadnaqayna inaad bajetkaad qoran doonto jaamacadda wax badan noo geliso qaybta beeraha weliba intaas ayaan ku soo koobayaa waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa dhammaan wafdiga madaxweynaha iyo xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waan u mahadnaqayaa waalidiintii ardayda quruxda badan leh ku soo tabacdayna waan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay allah waa idinka dhigo awlaad saalixa allah idinka dhigaan iyagana leeyahay waxa kaloon u mahadnaqayaa macallimiintii iyo maamulkii jaamacaddaan u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa barasaabka gobolka oo jaamacadda gacan wanaagsan oo la shaqeeya waxaan aada ugu mahadnaqayaa maayarka oo arday badan 150 arday oo fadhiya jaamacadda isagu ka bixiya isaga iyo golihiisa deegaan waan ugu mahadnaqaynaa cashuurtii uu ummadda ka ururiyey qayb ka mida inuu ummadda ku soo celiyo waa garasho fiican baanu leenahay taana qof kasta wixii uu qabtaana loogu mahadnaqayaa waxa kaloo aan u mahadnaqaynaa shirkadda telesom oo shirkadaha kale jaamacadda ka xigta oo mar kasta ka caawisa adeega isgaarsiintana ka caawisa wax walba ka caawisa iyadana waan u mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqayaa guddoomiyaha magan master xabiib iyo boorka jaamacadda oo ay ka joogaan cumar sheekh cabdilaahi iyo xasan cabdi madar jasaakum allahu khayran dhammaantiin aada iyo aad baad u mahadsantihiin wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu